walaashan Soomaaliyeed kan soo weydiisay su'aashan oo ah 4 bil ayaan qalanahay doctore hadda bil uur ayaan leeyahay waana qalinkayga saddexaad ma dhibba iga soo gaari kara horta ugu horreyn walaal qali aad u mahadsan tahay marka labaad saddex qalliin ayay gabadhaan soo martay 4 bil ayaa laga joogaa qalliinkeedii hore haddana uur hal bil ayay leedahay markii ugu horreysay waxay ahayd walaal inaad iska taxadirto naftaadana ka warqabto soo ugu badan ee family planning ama qorsheynta qoyska aan uga hadlayay waliba siyaabo uur looga hortago waxay tahay hooyooyinka Soomaaliyeed badqabkooda in la hagaajiyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in laga warqabo ayaguna iska warqabaan waxay ku fiicneed baayo in aad samaysato family planning ama aad uurka kala fogeyso si aad uga warqabto naftaada jirkaagana aad siisid fursad uu ku soo kabto maxaa yeelay qalliin ayaad ka qalliinka ugu dambeeyay ayaa wuxuu ahay 4 bil koor 3 bil gudahood inaad uur qaadahay ma qurux